السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو كرساقون channel waxaan ahay Cabdilaahi Cismaan waxa aan maanta ku soo gudbinayaa cashar cusub kaasoo noqon doona taxane waxa aan ugu magac daray 10 essential English words tobanka kelmadood ee Englishka ah ee muhiimka ah ama laga maarmaanka ah waxaan kugu soo gudbin doonaa 10 kelmadood waxaan raacin doonaa definition-kooda oo English to English waxa kale oo aan raacin doonaa example baan mid walba ka bixin doonaa casharkan waxaan soo gelin doonaa weegiiba mar ama laba mar sida ay hadba suuragal noqoto haddii alla yiraahdo laakiin ugu yaraan hal mar waan soo gelinayaa weegii waa 10 kelmadood oo muhiim ah aad iyo aad muhiim u ah marka casharka intaan ku guda jiro waxaad u fiirsan doontaa pronunciation-kayga ama habkaan ugu dhawaaqayo kelmadda sidoo kale micnaheega af Soomaali waxay ku noqonayso iyo sentence-ku waa muhiim kelmaddu qaabkii u galayso dabadeed sentence-kan marka aad fahanto aad xifdido isaga laftigiisa marka dambe sentence-kan u badir bedbedelaysa marka aad ku hadlayso oo kale ama aad qorayso oo kale sidoo kale subject-ka kelmad yar bedbedelaysa oo sentence-ku badir bedbedelaysa waa muhiim marka inaad sentence-ka sidiisa ku diyaariso haddaba aan bilowno afraid waa verb ama waa fal afraid waa baqdin afraid means feeling fear afraid معناه wax kala maaha waa feeling fear waa inaad dareento cabsi the woman was afraid of what she saw the woman was afraid of what she saw the woman was afraid gabadhu waxay ama ka baqday of what she saw waxay aragtay marka afraid kelmad afraid waa ficil ama waa fal micnaheeduna wax weeyaan waa cabsi gabadhu waxay ka baqday waxay aragtay the woman gabadhu was afraid waxay ka baqday of what she saw waxay aragtay agree iyaduna waa fal micnaheedu waxa weeyaan waa ku raacid markuu qof fikrad ku keenay inaad adla kula raacdo fikradiisa ama aad fikradiisa fikrad la mid la timaado to agree someone is to say yes or to accept his or her idea to agree someone inaad qof ku raacdo wax ama shay is to say yes waa inaad tiraahdo yes or to accept ama inaad aqbasho his or her idea or her idea hadduu gabadh yahayna waa her hadduu nin yahayna waa his marka waa inaad fikradda qofkaad u qaadato to agree someone inaad qof ku raacdo shay is to say yes waa inaad tiraahdo yes or to accept waa inaad aqbasho ama inaad aqbasho way fikirkiisa the food is very good at that restaurant nin baydi ama qof baydi the food is very good at that restaurant cuntada hotelkaas aad bay u fiican tahay the food cuntada is very good aad bay u fiican tahay at that restaurant-ga mid kale ugu jawaabay I agree with you waan kugu raacsanahay angry waa adjective ama waa sifo angry waa cadho qofku markuu cadhaysan yahay marka waa sifo angry micnaheedu wax kale maaha means feeling or showing strong annoyance angry wax kale micnaheedu maahe waa feeling waa dareenka or showing ama inaad muujisaba strong annoyance cadho inaad muujiso weeyaan annoy bay ka timid kelmadda u dambaysa annoyance marka waa inaad cadho muujiso strong annoyance waa inaad cadho badan muujiso marka angry micnaheedu wax kale maaha cadho weeyaan ama waa cadhaba she didn't do her homework so her father is angry she didn't do may qaban ama kama shaqayn her homework shaqo gurigeegii so her father sida darteed aabaheed is angry wuu cadhaysan yahay homework wax kale maaha waa exercise-yada ay macallimiintu u diraan ardayda si ay guriga uga soo shaqeeyaan ee shaqo guri loo yaqaan marka she didn't do her homework kama aysan shaqayn ama may qaban shaqo gurigeedii ama exercise-keedii so her father sida darteed aabaheed is angry wuu cadhaysan yahay arrive waa verb iyadna waa fal ama waa ficil to arrive means to reach a place to arrive inaad timaado imaansho weeyaan arrive waa imaansho to arrive inaad timaado meeli means micnaheedu waxa weeyaan to reach a place inaad meel gaadho imaansho waxa ka horreeya inaad meeshii gaadho aad imaanaysay marka imaansho wax kale maaha waa to reach a place waa inaad meel gaadho example she arrives 10 a.m. every day she arrives waxa ay timaadaa ama ayna soo gaadhaa 10 a.m. 10ka every day maalin kasta attack waa verb ama waa fal weyn ama waa ficil micnaheedu wax kale maaha attack waa weerar inaad qof weerarto ama shay aad weerarto to attack is to try to fight or to hurt to attack weerar is to try waa inaad in la isku dayo to fight in la dagaalamo or to hurt ama inaad dhaawac la sameeyo ama qof wax la yeelo example the man with the sword the other man attacked first
the man with the sword, the other man attacked first. Ninka wata swordka ninka kala weeraray markii hore. The man with the sword, ninka wata swordka, the other man ninka kala attacked first markii hore weeraray. Approach waa verb ama waa fal. Approach means to get closer. Approach waa u dhawaansho, waa inaad meel u dhawaato. Approach micnaheedu wax kale ma waa to get closer. To get closer waa la micno tahay. To get closer waa inaad ku dhawaato. Example, the boy approached his school. Approached ma odhan karno oo ed-da lama muujinayo marka lagu dhawaaqayo oo rules baa jira. The boy approached his school. Inanku wuxuu gaadhay iskuulkiisa. Clever waa adjective waa sifo. Clever waa sifo. Marka clever micnaheedu wax kale maaha, waxa weeyaan waa xariif ama qof aad u xariifa. Marka clever xariifnimo means micnaheedu waxa weeyaan having inuu qofku haysto or showing ama uu muujisanayo ka muuqataba the ability awoodda ama kartida to learn oo ku baranayo and understand ama uu ku fahmayo things shayada quickly si dhaqsa and easy oo fudud. He's very clever because he always solves hard mathematical problems. He's very clever aad buu xariif u yahay because maxaa yeelay he always solves wuxuu had iyo jeer xalliyaa hard mathematical problems. Xisaabaha oo adag. Marka problem, kelmadan problem dhibaato waa loo adeegsan karaa. Sidoo kale waxyaabahan physicska iyo mathematicska exerciseskooda ama waxyaabaha laga shaqeynaya xisaabaadka problem waa la odhan karaa. Marka he's very clever aad buu xariif u yahay because maxaa yeelay he always had iyo jeer isagu solves wuxuu xalliyaa hard mathematical problems. Masalooyin xisaaba oo adag. Cruel iyada lafteedu waa adjective micnaheedu wax kale maaha, waa axmaqna marka axmaqnimo waa sifo. Adjective marka weeyaan. Cruel waa axmaq. Cruel is the person who do bad things to the others intentionally. Cruel is the person waa qofka who do kaasoo sameeya ama ku do kaasoo ku sameeya bad things shayo xun to the others dadka kale intentionally si kasa si uu u kasayo dadka kale wuxuu yeelayaa waxyaabo xun u sameynaya. Example, the cruel teacher is coming today. The cruel teacher is coming today. Macallinkii axmaqii maanta wuu imanaya. Finally waa adverb weeyaan. Finally marka micnaheedu wax kale maaha waa ugu dambeyntii ama gabagabadii ama dhamaadkii weeyaan. Finally means at the end. Finally micnaheedu wax kale maaha waa at the end waa dhamaadkii. Example, he finally crossed the finish line after 5 hours of running. He finally ugu dambeyntii crossed waxa uu gudbay the finish line finish line-ka after 5 hours of running ka bacdi 5 saacadood markuu orday. Finish line waxa weeyaan waa laymankan la dhigo dadkan orodyahanada kale loo dhigo ama tartanada ee markuu qofku soo gaaro finish baa ku qoran markuu qofku soo gaaro halkaas orodkii ku dhamaaday ay ka dhigan tahay. Marka finish line waa line-ka marka tan wuxuu yiri he finally ugu dambeyntii crossed waxa uu dhaafay ama uu gudbay the finish line-kii ugu dhamaanay tartanku after 5 hours of running ka bacdi 5 saacadood oo orday. Hide iyaduna waa verb ama waa fal. To hide is to try the others not to see something or someone. To hide inaad qariso qarin weyn hide micnaheedu to hide inaad qariso is to try waa inaad isku daydo that others kuwa kale not to see something inayna arkin shay or someone ama qof. Example, he hides his book when he didn't do his homework. He hides wuxuu qariyaa his book buugiisa when he didn't do marka uu ka shaqeynin his homework shaqo gurigiisa ama layligiisa. casharku maanta halkaa inoogu joogo ku xidhno Korsa Aqoon Channel la soo casharadan waxay noqon doonaan taxane oo sidaan soo sheegnay toddobaadkiiba hal mar ugu yaraan ayaan soo gelin doonaa ama laba mar qaybaha kale ee luqadda ee aan casharkan channelka soo gelin la soco sida grammarka sida listeningka sida daily sentenceska